Macallin Khayrad waxa uu ahaa nin wanaagsan oo aan lagu aqoonin waxa aan ahayn wanaagga. Habeenada ka mid ah ayaa waxa uu qaatay gaarigiisa si saaxiibkiisa uu u soo dhaweeyo, kaas oo ka imanayay dalka dibaddiisa. Waxa uu soo aaday airport-ka. Si kadis ah waxa uu arkay wiil dhalinyaro ah oo wada gaari, kaas oo si degdeg ah hortiisa uga soo baxay wiil kale. Ninkii dhalinyarada ahaa gaariga waa uu awoodi waayay inuu xakameeyo maadaama uu speedkiisa aad u sareeyay. Labadii gaari waa ay isku dhaceen, ninkiina waa ay sababsadeen, waxaana ka daatay dhiig aad u fara badan. Khayrad waa uu cararay si uu u fiiriyo waxa gaaray wiilka. Alla mahadiisase wiilka waxa uu ahaa mid nool oo nafta ay ku jirto. Inta uusan miir daboolin wiilkii, Macallin Khayrad waxa uu ka ogaaday in magaciisa uu yahay Haadi. Gaarigiisa ayuu soo saaray, si xawli ahna waa u soo kaxeeyay gaarigiisa. Waxa uuna keenay isbitaalkii ugu dhowaa markaa si loo dabiibo. Wiilkii ayuuna qaaday, waxa uuna la galay isbitaalka. Ninkii qaabilsanaa soo dhaweynta albaabka ayaa waxa uu ku dhahay, waan ku baryayaa, xaaladda wiilka dhalinyarada ah waa degdeg, waxaana u baahannahay dhakhtar. Si deggan ayuu wiilkii soo dhaweynta fadhiyay ku jawaabay. Waxa uuna dhahay, ma waxa waaye walaalkaa kula dhashay, mise waa qof qaraabadaada ka mid ah? Magacii mise sana ayuuna jiraa? Khayrad waxa uu ku dhahay ninkii soo dhaweynta, waxaasi kama gaarno, inta aan hadalka wadno inuu dhinto ayuu halis ugu jiraa. Fadlan si degdeg ah igu wac dhakhtar, iina boobsii hawsha. Wiilkii si qabow ayuu Khayrad ugu dhahay, waan ka xumahay, ma awoodo inaan gudbiyo anigoo aanan ogaanin macluumaadkaas. Waxbana uma qaban karo, gudahana ma geli karo. Adiga waxaad ku jirtaa isbitaal gaar loo leeyahay. Khayrad asaga oo qaylinayo ayaa waxa uu dhahay, hadalka aan kula hadlayo maahan mid aan faa'iido ka helayo, waxaan u baahanahay maamulaha isbitaalka. Ninkii joogay soo dhaweynta waxa uu u tilmaamay xafiiska agaasimaha isbitaalka. Wiilkii dhaawac ahaa ayuu meesha dhigtay, waxauna u degdegay halka uu ku yaalo xafiiska agaasimaha. Albaabka ayuuna furay, waxauna ku dhahay, waxaan wadaa wiil dhaawac ah, kaas oo si degdeg ah ugu baahan gargaar. Shaqaalaha aad meesha istaajisayna waxayna weydiinayaan su'aalo aan munaasab ahayn. Aad waxa uu la yaabay Khayrad markii agaasimaha isbitaalka uu ku dhahay, si saxan ayuu kula hadlay, kuuna soo dhaweeyay ninka jooga soo dhaweynta. Sidee ayaan howl kugu qabanaa oo aan ku aaminaa haddii aadan waxba u ahayn wiilka dhaawaca ah? Sideese u heli karnaa haddii aan daweyno lacagtii aan ugu adeegnay? Macallin Khayrad waxa uu dhahay, aniga ayaa kafaalad qaadaya lacagaha ku soo bixi doona oo dhan, laakiin waan idin baryayaa ku degdega inaad wax u qabataan. Waxaana ku xasuusinayaa xadiidka nabigeena, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, ee ahaa, qofkii qof muumin ah ka feeda kurbo ka mid ah kurbooyinka adduunyada, alla waxa uu ka feedaa kurbo ka mid ah kurbooyinka maalinta qiyaamaha. Markii uu xadiidka u akhriyay maamulaha kadib, waxa uu ku dhahay, soo bax ila deg, si aad u soo aragto xaaladda wiilkan aan wado sida ay khatar u tahay. Agaasimihii isbitaalka waxa uu ku dhahay, aad ayaan uga xumahay, ma kuu samayn karo wax gargaar ah. Macallin Khayrad agaasimihii isbitaalka waxa uu ku dhahay, xasbunallahu wa nicmal wakiil. Waa uu degdegay, waxauna wiilkii u qaaday isbitaal dowladeed. Aad ayaa waqti badan looga soo lumiyay, waqtigana waxa uu ahaa habeen. Dhakhaatiirtii isbitaalkana waa ay baxeen, halkaasna maysan joogin wax aan ka ahayn kalkaalisooyin. Markii ay baareen, waxay ogaadeen inuu u baahan yahay qalliin degdeg ah. Waxa ayna weydiiyeen aabihiis si uu u saxiixo, waxayna u sheegeen in laga yaabo inay halis galaan qaybo ka mid ah jirkiisa. Macallin Khayrad waxa uu baaray wiilkii dhaawac ahaa, waxa uuna jeebkiisa ka helay telefoon. Waxa uuna wacay lambarkii ugu dambeeyay ee Haadi uu wacay inta uusan dhaawacmin. Nasiib wanaag, nambarkii waxa uu ahaa nambarkii aabbaha Haadi. Aabbihii ayaana soo gaaray isbitaalka asagoo aad u ilmeynaya. Aabbihii wiilka markii uu arkay Khayrad waxa uu dhahay, adiga soo maaha ninkii idhahayay xasbunallahu wa nicmal wakiil, maxaa halkan ku keenay? Khayrad waxa uu dhahay, aniga ayaa wiilkaaga keenay halkan markii aad nagu qaabili weysay isbitaalkaaga.
wiilkiisa ayuu soo qaatay asaga oo naxsan, isbitaalkiisa ayuuna keenay. Gacantiisa ayuuna ugu sameeyey qaliinka asaga oo ilmeynaya. Waxa uuse aad ula yaabay markii uu arkay macallin Khayrad oo salaad tukanaya, kaas oo Alle ka baryaya inuu u caafiyo wiilkiisa sida in uu yahay walaalkiisa oo kale. Aabbihii ayaa raali geliyey Khayrad, laabtiisa ayuuna geliyey asaga oo ilmeynaya. Laga bilaabo maalintaasina aabbihii waa uu isbedelay. Waxa uuna go'aansaday in uu wanaag sameeyo. Laga bilaabo maalintaas waxa uu go'aansaday in qof miskiin ah maalin walba si bilaash ah ugu sameeyo qaliin. Markasta uu arko wiilkiisa Haadi oo caafimaaday laakiin hal lug laga jaray, waxa uu dhahaa, haddii aan miskiin ama qof faqiir ah wax siin lahaa ama aan u gargaari lahaa, maanta wax dhib ah kuguma dhici lahayn. Maadaama rasuulkeena wanaagsan, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, uu dhahay, sadaqada waxa ay damisaa carada Alle, waxa ayna ka daafacdaa xumaanta oo dhan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. haweeney da'deedu way ahayd 40 sano, qur-aanka iyo salaadana aad u jecleed. Waxay ahayd mid dadaal badan oo lagu xaasidnimeeyey dadaalkeeda. Waxay aadaa iskuulka ay dhigtaan afarteeda caruur si ay u soo ogaato natiijadooda. Maalin walba qoraxda oo aad u kulul ayay waxay wadada weyn ku sugtaa labadeeda canug, kuwaas oo gurigooda iskuulka uu ka fog yahay kiiloomitir, si ay u soo kaxayso oo ay guriga ugu soo celiso. Waxayna ka xambaartaa oo ay ka qaadaa boorsooyinkooda culus. Markii ay ilmaheeda qadada u diyaariso oo ay cuntada siiso, 30 daqiiqo kadib waxa ay ku soo laabataa si ay canugeedii saddexaad ay uga soo kaxayso iskuulka. Waxa ayna ilaa 4 galabnimo ay sugtaa canugeeda kale. Si kasta oo gurigeeda uga fog yahay goobta waxbarashada caruurteeda, waxay u raacdaa iskuulka gaari. Mar walba waa yaadaa oo ay qabataa hawshaasi, kamana daasho. Qof walba oo iskuulka joogana waxa uu u ixtiraamaa si hooyanimo ah iyo sida ay ilmaheeda yaryar u ilaalinayso. Wiilkeeda yar ee galableyda ahna ma ogola in uu wax barto ilaa hooyadiisa ay fadhiisato fasalka hortiisa. Mar walbana waxa ay marti ku ahayd albaabka fasalka canugeeda yar uu wax ku barto. Kursi yar oo alwaax ah ayay ku fadhiisataa oo dhabarka uu ku xanuunaa. Dadka qaar waa ay ku xaasidnimeeyaan haweeneydan adeegeeda iyo sida ay ilmaheeda u jeceshahay una ilaaliso. Ninka iskuulka mudiirka ka ah ama maamulaha ka ahna daaqadiisa waxay ahayd mid ku aadan dhammaan fasalada iskuulka. Waxa mar walba ay indhihiisa qaban jireen hooyadaasi wanaagsan, sida in kursiyadooda ay isku dhagan yihiin oo kale. Waxayna akhrisaa qur-aanka iyo adkaarta si khushuuc uu ku jiro. Markii la eedaamo salaadana waxay aadaa musallaha haweenka, waxa ayna la tukataa macallimiinta. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu yeeray maamulaha iskuulka. Waxa uuna ku dhahay, ma la socotaa in iskuulka uu ku doortay sanadkan hooyada ugu wanaagsan? Marwadii waa ay yaabtay, marna ma aysan filaynin arrintaasi. Waxayna dhahday, aniga. Waxa uu ku dhahay, haa, yaa istaahilo oo aan adiga ahayn. Magaaladan iyo beledkan oo dhan adiga ayaa ka istaahila.
hooyadii aad ayay u ilmeysay. Ooyinteeda maamulaha waxa ay ka dhigtay mid ka xishoodo, maxaa yeelay waxa ay u ooysay warka uu u sheegay darteed. Kadib waxa uu weydiiyey, maxaa la ilmeynaysaa? Maxaa dhacay? Ma ku faraxsanid miya waxa aan kuu dooranay? Haweeneydii waxa ay dhahday, haa, waan ku faraxsanahay. Farxad darteeda ayaana la ilmeynayaa. Laakiin ciyaalkan aniga ma ihi hooyadood, sababtoo ah aniga ma istaahilo in lagu yeero hooyada ugu wanaagsan sanadka. Hooyadood waa ay geeriyootay sanad ka hor, anigana waxaan ahay xaaska aabbahood. Wax owlaad ah Alle ima siinin, laakiin kuwan ayaa ii ahaa adduunkayga. Waan ku faanaa, waxayna ahaayeen noloshayda qayb ka mid ah. Waxaan u jeclaaday sida in ay yihiin ilmahayga oo kale. Haddii aan dhali lahaa carruur kale, uma jeclaadeen sida aan hadda u jeclahay. Kadib madaxeeda ayay kor u soo qaaday iyadoo indhaheeda ay ka qubanaysay ilmo badan. Waxa ayna ku dhahday maamulaha iskuulka, waxaan jeclahay in rasuulka micigiisa aan noqdo jannada, sida nebigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee inoo ballan qaaday. Markii uu dhahay, qofkii ilaaliya ilmo yar oo agoon ah waxaan jannada ku nahay, sidaan oo kale nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ishaaray ama uu tilmaamay labadiisa farood. Maamulihii markii uu la yaabkaasi maqlay kadib waxa uu dhahay, adiga waxaad tahay boqoradda hooyooyinka. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى